madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha ay aqalka cad uu xilka ka degayo dabayaaqada bisha soo socota. Madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in ciddii bedeli lahayd John Kelly uu go'aan ka gaari doono maalmaha soo socda. John Kelly oo ahaa jeneraal hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu maraha xogayaha amniga gudaha ee maamulka Trump. Madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay John Kelly inuu yahay nin wanaagsan. General Kelly is doing a fantastic job. There has been such false reporting. waxa uu ila shaqeynayay imika muddo hal sano ah ayuu yiri madaxweyne Trump. Bishii aynu soo dhaafnay wakaalada wararka ee Reuters ayaa la wareeyay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ka soo xigatay in laga yaabo in xilka madaxa shaqaalaha aqalka cad loo dhiibo Nick Ayers. Mr. John Kelly ayaa xilka madaxa shaqaalaha aqalka cad loo dhiibay 2017. Nick Ayers ayaa imika ah madaxa shaqaalaha xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. tan iyo intuu qabtay madaxweyne Donald Trump 28 qof ayaa iska casiray xilka aqalka cad ee Mareykanka. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, wararka telefishinka caalamiga ee Ariel.